maxaa qaatay waqti dil soo dhaafay ama jooma wuu gubay jooma gubid maxaa goormo sameeyay waqti dil soo dhaafay asagana aaway kana daro nafsiga soo bedeli kara tu ameesha geli kara tu aad dhaw u taagan tahay annaga waa isbaan oo malena marka cashirkaas saxdiisa waxay ka caawinay hadalka dhiigay waana ku soo celinaa waxaa dhahay waxa qaadanaysa waxa waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu oo ujeedin xogaha waa yara maqnay waxaan u maleynaa kulli ardayda inta badankooda og way ogyihiin laga yaabo ardayda siba ardayda online-ka way ogyihiin xogaha in macalinka gacan yar ee wax ay ka soo gaartay marka waa xaalad wax mar walba iska dhaca waaye haddii aad tahay heera almiita mise banooni qasab waa wax walba ku soo gaarayaan marka alxamdulillah waa fiicannahay cashiradana meesha kasii wadana marka arday badan oo rabay ugu talagalay inaan ugu soo celiyo cashirka intaana jabinbo cashirka nafsiga waqtiga iyo ficilka ahay ila soo hadlay cashirkaas cashirka ugu horeeyo channelka aan soo dhigno laakiin clean mo ahayn lama arkaayo sharxitaanka buuqi waxaa ku furan marka waa u balan qaaday arday inta ila soo hadashay u balan qaaday inaan cashirka soo celin doono oo kala dhigi doono markaas la socono video ku ceesho si qof walba uu fahmi karo aan ku macneynayna insha Allah waxaan dhahnay haddii aad u baahan tahay ku hadalka Swahili inuu ku fududaado waxa macallin ugu baahan tahay waa erayo iyo ficilyo iyo magacyo cusub inaad taqaanid oo macalinka ku siiyo mise adiga aad raadisid muhiimadda ugu horeysa waxa waaye in aad taqaanid wax inaad isku aadin karto hadaad isku aadintaasina waxaa u baahan tahay naxwaha haddaan anigana xooga aniga qaasaanteeda xooga aa saaro waxaa waaye Swahiliga naxwaha inta badanaa ardayda taqaanus ardayda haayo iskuulka ku hayno naxwaha xooga saarnaa manhajka naxwaha u badan yahay ileen markaas wax hadda kala fahanto qaab wax la isku dhijinayo la isku aadinayo waa ku fuudaane markaas waxa u baahan tahay erayo cusub oo dheeraad ah waxaasna waxa raadin karto waa adiga naftarka raadin karto marka ay isla socono isku dhijiska cashirka muhiimadiisa waxa waaye cashirka ugu horeeyo halbowlaha ah Swahiliga halbowlaha waaye naxwaha ugu horeeyo isku dhijiskiisa nafsiga iyo waqtiga iyo ficilka waa nafsi waqti iyo ficil haddaad isku dhijiskiisa aad fahanto waxaan kale ku fuudaanay markaas la socono وهذا نصرف النحو والنفسي وكاتي iyo vitenzi ficil vitenzi waxay ka qaadanay ayagoo badan ka qorin doona cashirahana u qaadan doona hadda waxaan rabnaa shaxda la isku dhijinayo inaad fahanto mimi oo aniga wewe adiga yeye asaga mise ayada sisi anaga nyinyi adinka wao ayaga mimi niya u taagan aniga niya u taagan wewe adiga uwa u taagan yeye asaga mise ayada aa u taagan sisi anaga tu u taagan nyinyi adinka a u taagan wao ayaga waa u taagan maxaa la sameynaa marka waxaa qaadanaysaa nafsiyadan waxa u taagan waa ka tagi kara nafsiyadu waa weyn dadaa jiro oo maybe macallimiin laga yaabo kugu xujeynaya nyinyi inaad tan soo qaato qasab ma ahan ilaa waa reputation hada isku soo celinayo maadan nyinyi u taagan tahay jaa maada kaliya soo qabsan kara ilaa maada uma taagnaa karto nafsiga uma taagnaa karto kuwana soo qabsana kuwana ku dhijina kuwa maxay yihiin marka kuwa waqtiyada uliyopo hadda la joogo na loo isticmaala uliyopita mar la soo dhaafay li loo isticmaala ujao weli ala gaarin ta loo isticmaala timelifu hadda dhow la soo dhaafay me loo isticmaala maxaa sameynayna marka kuwana qaadanayna kuwana ku dhijinayna waxa ku dhijinayna ficiliyada ficilka raba qaadana marka waxa ficilada marka la asal dul marno afarta xaba macneeno paswa maxaa paswa waa dilaacitaan dilaacin wax la dilaacinayo vunja waa jabin chemsha waa karkarin chomane waa dubid mise wax la choomeynayo badana asxaabta Soomaaliya Swahili isku daro waxaas ii choomey ku dhahaan ii dub amal waa dubitaan chooma loo isticmaala chemshana waa karkarin marka
maxaa sameynaa marka shaxdiyaa rabnaa marka inaan isku aadino iyo hadalka inaan dhaho maxaa sameynaa waxaa qaadanaa nafsi waxaa ku dhijinaa waqti waxaa ku dhijinaa ficil maxaa sameynaynaa marka waxaa sameynaynaa tusaale ahaan waxaa qaadanaa nafsiga mimi waxa u taagan mimi maxaa u taagan niyaa u taagan ni'diyaa qaatay ni'da hadaa qaato maxaa ku dhijinaa waqtiga ku dhijinaa waqtiga rabaa ku dhijinaa ama na ama li ama ta mise me midkaa rabaa ku dhijinaa waxaa leenahay nina markaa dhaho ficilaa ku dhijinaa tusaale ahaan ninavunja waan jebinaa yaa jebinaya ninavunja waan jebinaa mise nina chemsha waan karkarinaa yaa karkarinaya adiga karkarinaya goormee karkarinaya hadda la joogo maxaa sameynaysaa wax karkarin haddaa rabo inaad nafsi kale isticmaalo nafsi kale waa qaadan karaa asagaa qaadan karaa asaga ame maxaa qaatay waqti dil soo dhaafay ame choma wuu gubay choma gubid maxaa goormoo sameeyey waqti dil soo dhaafay asagana waay kana haddaa rabo nafsigaas waa bedeli karaa tu meesha geli karaa tu haddaa dhaho u taagan tahay annaga waa isbaan noo malaynaa marka cashirkaas saxdiisa waxay kaa caawinay hadalkaa dhihi lahayd waana kusoo celinaa waxaa dhahay waxaa qaadanaysa waxaa waaye nafsi waxaa ku dhijinaya waqti waxaa ku dhijinaya ficil ficilada waxay rabaan noqon karaan ninakula waan cunteynaa nimekula waan cunteeyey goorme wax yar ka hor nilikula mar horaa cunteeyey li mar hor lasoo dhaafay nitakula waa cunteyn doonaad maxaa u taagan ta'da marka meesha u dambeysa waxaa waaye waqtiga aanan meeshaan ku darin hore usoo qaadanin waqtigoo ahay mazoea wax mar walba dhaco maxaa loo isticmaalaa hu cashirkan waxaa u maleynaa laba cashir ka hor cashirada oo laisku keenay waa soo dhignay cashirada caadi ahay oo socday hu iyo huwa sidii loo kala isticmaalo so hu waa ku laaban kartaa waa fiirin kartaa iyadana kolley waa ku celin doonaa wixii aan fahmin ardayda soo weydiisay oo sabka caadi usoo weydiinayso raba in lagu celiyo cashirka waa lagu celiyo haddii cashir kale u baahanta aan waxaa ku baraarujina ardayda dhan inay nagu soo biraan weli bishii cusub sanad cusub oo la galaayo casharada weli socdo marka dadaala wixii su-aal aa qabtiina soo weydiiya ardayda ingeeliyaasha soo weydiisayna insha allah ingeeliyaasha ayagana si fudud aa idinku fahansiin doonaa ardayda online-ka badankood iyo kuwa iskuulkaba way gaareen si fiican ay u fahmeen geeliga oo kale marka arday hadda waxoogaa ku dhibaataysan waxaa arkaysaa waa ardayda suwaaxili kaligiis dhiganaya maaha mise luqadda hadalkeeda kaligeed muhiimku ah ma ahan geeliga ka soo codsanaya waa dad dugsi sare dhiganayo mise primary dhiganayo oo kenya systemka caadiga dhiganayo oo ku adeeg yahay qof fahansiiye la badanaa ardayda iskuullada dhigtaan oo ila soo xiriiray waa ku mahadsantihiin waxaana idin ballan qaadaa insha allah inaan idinka baahi tiro geeliga ilaa ma adko yaa laga dhaadhicinin geeliga waa casharada naxwayaasha ugu fudud oo ka mid yahay haddaa fahanto qaabka ku socda meesha ka socda iyo meel uu socda haddaa fahanto geeli wuxuu yahay marka hore kundi la nomino haddaa fahanto nominayaasha inaad isku keento meelahay kala galayaan le uma markaan shaxdiisa waxaa waa nominayaashan magacyada meelahay kala galayaan meelahay hoos imaada magacyo waxaa jira dareere ah magacyo waxaa jira oo iska caadi ah magacyo bilaadan ah magacyo waxaa nooleen ah waa magacyo ka bilaabaan way kala yihiin so shaxdiisa waa fudud yahay waana idinla wadaaga insha allah so isdiiwaangelinta online-ka iskuulka soo biiritaankiisa sii wada channelkana la taageera insha allah haddaad fiiriso ardayda maxaa dhihi jiray ku xiran oo daawanayso iyo inta subscribe dhahdo way kala badan yihiin percentage-gooda markaa fiiriso so haddii cashir aad qaadato oo faa'iido ku iska fiiri laga yaabo inaad ku xirantaa iska daawato aanan subscribe saarin marka subscribe ku dadaal si percentage-ka oo isku keeno marka halkaas kusoo gabayna insha allah lana soco waxa loo isticmaalo nafsiyada kaliya qaado waqtiyada waxa loo isticmaalo ku dhiji ficilka rabta ku dhiji hadalkaada waa isgalaa markaas wabillahi tawfiiq